السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالنت هذه التيري كسر دو فانولا جنال والله دمان ميل كستو جوجتان با وحربا إن اللي ذو ذاقو قصير وقد عضي دور عشكور ودن كهولا عنوانك سيدي كم وقت بقى خنت رايد student aan met 110 kilometer per uur in de bebouwde komt. Zonder sirene of zwaailicht, de snelrijden hoort erbij. Askari ayaa dul maray qof arday ah isagoo 110 ku socda magaalada gudaheeda isagoona u daarnayn sirena. Sirena waxaa la dhahaa dabcan waa wiida codka dhawaqaas mikrofoonka oo zwaailichten nal aan u daarnayn nalalka big pack dhahaya nalka bluegas meesha ku yaala snelrijden hoort erbij xawaaro culus ku socdo. haddii markaad intaas ogaatay xaggee ka dhacda qisada kaartada la wadaagi insha allah. Student right ninka dhalinyarada ah sheekada waxay ku timid magaalada laga yiraahdo Baylen ayuu askarigan degan yahay. magaalada qisada ka dhacdayna waa magaalada Groningen gudaheeda 29 bishii March hadda dhowr cisho ka hor 3 cisho malayna meelahaas wuxuu ku socday magaalada gudaheeda waxay u jirtaa Baylen magaalada Groningen 32 daqiiqo ilaa 34 waa 48 kilomitir meelahaas marba waxay ku xiran tahay xawaaraha jidka. wuxuu ka tirsan tahay gobolka lagu magacaabo Drenthe Netherlands la socotaba wuxuu leeyahay 12 province 12 province ayuu wadanka Netherlands leeyahay ama 12 maamul goboleed ama state waxaad u taqaanaba isagoo iska 300 kilomitir ah xaafaday qaybiyeen ee u bixiyeen steediyadaas. magaalada Aasan 16 kilomitir ay u jirtaa. marka qisada waxa waa ninka dhalinyarada ah askariga ay ku dhacday marka maxkamad baa la geeyay dabcan maxkamadii 7 bisha Abriil ayaa la xukumi doona. hordhac wax laga maqlaa looyarada qaar waxay leeyihiin sida ku cad joornaalka waxaa suuragal ah inuu shaqeeyo maaragtay loo xukumo 6 bilood oo la gelin doono raay on seeqin wax la dhahayo in laga mamnuuco inuu gaadiid wada baaskiil mooyaane iyo maaragtay 80 saacadood oo shaqo ah 80 saac inuu soo shaqeeyo ganaax intaas looga dhigo. waxay kaloo leeyihiin booliiska magaalada gudaheeda waxa loo ogol yahay sida joornaalku qorayo 50 inuu ku socdo sidii dad kale ku socdaan haddii laga fursan waayo 90 inay ku socdo 40 dheeraad ah. laakiin ninkan ma shaqana uma soconin nalalka inuu daartana wuu iloobay hadduu nalku daarnaan lahay xaalad kale ahaa la jeegadiisa. waxaan u keenay barnaamijkan waxaa waaye sharciga ayaa ka sarreeya qofka laakiin annaga markaan dib u fiiriyo waddankeennii Soomaaliyeed sharciga askariga asaa gacanta ku wato xildhibaanka asaa gacanta ku wato madaxweynaha asaa gacanta ku wato wuxuu doono sameyn ra'iisul wasaaraha asaa gacanta ku wato. marka intii sharciga uu qofka ka weynaanayo cadaalad iyo horumar la heli maayo. tusaalahan u keenay marka waxa waaye nin askari oo dowladda shaqo u dirsatay oo haddana dambi lagu soo ooga. waxaa laga yaabaa dad badan inay baryahan dowladdu way dadaalaysaa waa sax way dadaalaysaa laakiin qaladaadkana haysto waxaa waaye institutionka haddaana nidaam la sameynin dadka lama xakameyn karo. dowladdana meesha ka dhutinaysa waxaa waaye dastuurka waddanka ka jira dastuur baadil ah dastuur faasid ah. haddaad akhriso mar baan soo gudbinaya insha allah isagoo af Soomaali iyaga gacantooda ku qoray qaladaadkiisa oo dhan aan idin tusi
kow waa ogtiin wax badan awoodda maamul goboleedyaday leeyihiin isku dhaca maaluba ra-iisul wasaaraha madaxweynaha isku dhaca waxyaalaha keena waa dastuur qolo kale noo soo samaysay ingabagaati lagu soo sameeyey mahiigii kooxdiisa soo sameeyeen aniga ma dhahayay wuxuu ku qoran yahay haddaad rabto ku qor google maaragtay dastuurka soomaaliya hadda ma rabo inaan kusii dheeraado waxaan ujeedadeeda u tahay marka waa inuu qofka sharciga uu ka sarreeyo haddii taas la helo ayaa waxaa la helaya xasilooni iyo kala dambeyn walaalaha marka ka faa'iidaysi wacan intaan ku kulmayno amaano allah